بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. halkan waa kanaalkii afqalaad aqoonta miyaa ee aynu kaga hadlaynay casharadeenii taxanaha ahaa ee bilaashka ahaa ee ku salaabsanaa cilmiga econometricska. waxaynu hore usoo qaadnay laba qeybood oo kooban oo yaryar oo ku salaysan regression analysiska. waxaynu kaga shaqeynay gacanta, laakiin hadda waxaynu hore u ballan qaadnay inaynu combyuutarka idinku tusi doono si qaacidadii aynu gacanta kaga shaqeynay iyo tan combyuutarku aynu isbarbar dhigno. halkaana aynu keliya qaacidada aynu diiradda saarayno, laakiinse wixii kale ka dambeeyana insha allah aanu sii wadi doono haddii ilaahay ka dhigo. waxaynu soo qaadanay baaritaanka ama researchka ku salaysan si tusaale ahaana laba shay ama laba wax oo aynu baaritaan ku sameyneyno xiriirka ka dhexeeya ma xiriir adagba ma xiriir daciifa ma xiriirkaasi oo ku salaysan wax la yidhaahdo mid togan mise waa mid taban mise waa mid aan xiriirba lahayn. ujeedada ugu muhiimsanina saasay ahayd qaacidadii beta 0 iyo beta 1. marka laba qaacidadaas oo midna aynu ka niri waa intercept af ingiriisi intercept baa lagu yidhaahdaa, midna waxaa lagu yidhaahdaa slope. oo slope wuxuu inoo sheegayaa haddii x ay korodho y-na way la tis qaadaysaa xiriirka ka dhexeeyey labada x iyo y. muhiimadu marka yayna ku fogaanin, waxaynu taabanaynaa insert baynu taabanaynaa, kadibna waxaynu taabanaynaa data, waxaa ku xiga data analyze. boxkaas ay noo soo baxay saan filayo waa si fiican buu muuqdaa, inkastaan anugu ka yara fogahay. marka dambe baynu eegi doonaa insha allah. regression baynu kasii taabanaynaa, walxaha fara badan leh. inaga waxaynu ka dooranaynaa ujeedadeenu tahay regressionka. okay baa la saarayaa, waxaa kuu soo baxaya laba bogos baa kusoo baxaya ama laba qol oo kala sareeya. qolka sare waxaa lagu xareynayaa wixii y independentkii ama oo inooga taagan natiijadii imtixaanka ardayda. waynu soo qaadanaynaa maca waxaa natiijada oo ah ciwaanka waa raacinaynaa iyo numberiska waa la israacinayaa. bogaska ama qolka labaadna waxaan gelinaynaa x range, qeybtii x-ka u taagnayd ama akhriskeena hadda saacadaha ardaygu wax akhrisanayo. marka waa xiriirkii ka dhexeeyey saacadaha ardaygu wax akhristo iyo guusha imtixaankiisa ama natiijada imtixaankiisa grade point. waxaynu taabanaynaa levelkuna wuxuu inooga taagan yahay ciwaankaan gashanay, macnaa ciwaankii waynu gashanay. marka level baynu taabanaa leveliska. haddaynaan ciwaanka u baahnayn oo ma taabanayno, laakiin waxaynu ciwaan ka saaraynaa 2 ilaa 5 baan bilaabaynaa, 2 ilaa 8 numberisku ma gelinaynaa, laakiin hadda leveliska waa ciwaankii. intaa waxay noo sii raacaa output range iyo new worksheet. haddii new worksheet taabana waxa weeye sheet cusub buu maxsuulku inoo dhigayaa, laakiin hadda waxaynu u baahan nahay outputkana si aynu halkan aynu ugu aragno. halkaasaan dhiganaynaa outputka si qoraalkeena iyo wixii isu ekaadaan. waxaa inoo soo baxay maxsuulkeenii waxa weeyaan summary outputkii ayaa inoo soo baxay. waxaynu ujeedadeeni waxay ahayd coefficientkaasi waa parametriskii oo ah ka taagan labadii nola iyo oxy intercept iyo slopekii. wuxuu inoo soo baxay waan doonaynay waxa weeyaan aan weyneynayna
okay akhriskeenu natiijadeeni waxa weeyaan interceptkeenu waa 3.5172 akhriskeena waa 0.793 marka tii aynu gacanta kaga shaqeynay qeybtii labaad iyo kombyuutarkii waa isku mid sidaa waad kaga shaqeyn kartaa, waad kusoo saari kartaa interceptka iyo akhriska iyo sloopka. inagu marka hadda waxaan diiradda saaraynay sidii aan ku heli lahayn interceptkeeni intuu noqday 3.51 iyo akhriskeena oo ah 0.79. sidaa waad kaga shaqeyn kartaa. waxaan kaloo aynu ku eegeynaa ama ku fiirinaynaa mar labaad dhinaca kale oo ah waxaynu soo qaadanaynaa imka ciwaanka gelinmaynay 2 ilaa 10 numberskaynu soo qaadanaynaa. insert baynu taabanaynaa, scatterkaasaynu taabanaynaa. scatterka markaan taabano dhinaca midigtu waa natiijadii, dhinacan hoosena waa akhriskeenii. waan kasii tegaynaa layoutkaaynu taabanaynaa, waxaan sii gelaynaa trend lineka, more option trend line baynu sii taabanaynaa. waxaa ku qoran exponential iyo linear, logarithm, polynomial, power, moving averagekaas laftiisa waa econometricska qeybtiisa advancekiisa loo baahan yahay. marka inaga linearkaas ayaynu taabanaynaa. linearku yacni xiriirka ka dhexeeya labadii x iyo y-gi. waxaan sii taabanaynaa marka equation, display equationkan taabanaynaa. waa kadib waxaa inoo soo baxay sidoo kale interceptkeenii iyo sloopkii aynu gacanta hore uga soo shaqeynay, iyadana inta daqiiqeyn kaga shaqeynay. way waxay la mid tahay 0.793 x oo ah b1 x beta waa qiyaastii 793 iyo interceptkiina waa 3.57. daatadeedina waxay dul saaran tahay oo ay ku beegan tahay lineka. marka xiriir togan ayaa ka dhexeeya oo weliba very strong ah. hadhow waxaan ka eegi doonaa multiple r square iyo multiple r oo correlationada iyo la xiriira lafteeda oo kusii tusaya muuqaalkani haddii uuna wanaagsanayn meel kale oo aad technica kale aad raadinayso ood ka eegeyso modelku sida uu yahay inuu wanaagsan yahay. labada qaybood waxaan ku eegnay labada qaybood oo midna data analyzeka yahay, midna scatter x and y-ga. hadda waxaan ku eegeynaa qeyb kale oo iyaduna aada muhiim ah oo ku saleysan SPS program iyaduna ardayda tesiska qoreysa iyo kuwa laftooda PH diyaarinaya aada iyo aada ugu baahan yihiin, aadna loo isticmaalo. jaamacaduna aada u isticmaaleen SPS programka oo social scienceku especially markii hore loogu talagalay. wuxuu kale qeybsan yahay data view iyo variable. inaga variablekan ku horeysiinaynaa. halka waxaan ku qoraynaa interviewga id, interviewgeenu qaadayna dadkaan soo wareysanay. halkan waxaan ku qoraynaa, halkana waxaan ku qoraynaa waxaynu u baahnay natiijo oo wayga ka taagan iyo akhris oo inooga taagan x-ka. waxaynu u baahannahay levelka. halkana waa id, inta qof aad soo magaranaysa interview kusoo sameysay waa id ama numbers baad iska sameyn kartaa. natiijada waxa weeyaan natiijada imtixaanka. kana waxa weeyaan saacadaha wax akhriska ama wax akhrinta. intaasaan uga baahannahay. marka daatadaynu qorayna marka idgii imsa ahaa 1 2 3 4 5 5 qof baynu wareysanay. natiijadii koowaad maxay ahayd? qeybta natiijada waa 5
ilaa 10 soo koobi garayso waxaan gelinaynaa halkan akhriskeedan waxay 2 ilaa 8 kanaan gelinaynaa. kadibna markaa iyadoo sidaas waxaynu taabanaynaa analyze baynu taabanaynaa, regressionkaynu kasii taabanaynaa, linearkaynu tegaynaa. halkan waxaynoo ah 2 boqos iyana, midna waa dependent oo waa ydii oo natiijadii imtixaanka ydan gelinaynaa. saacadaha wax akhriskana waxaan gelinaynaa independent variable oo ah x, wax kale uguma baahnin. kadibna okay baan taabanaynaa. maxsuulkii baa inoo soo baxay. waxaanu uga baahannahay qeybtan oo ah waxaynu u baahanahay parameterskii constantku waxa weeyaan intercept 3.517, saacadaha wax akhriskeenuna waa 0.793. marka saddexda arrimoodba ee computerkan kaga shaqeynaya waa sidaa. doorka dambe waxaynu geli doonaa insha allah r squared iyo rta iyo waxyaabihii kaleete markaa aynu uga baahno sida b valuega, hypothesiska iyo wixii la xiriira. kheyr iyo bashbash iyo barwaaqan idinku raseynayaa. intaasayna ugu dhamaatay. wassalaamu calaykum. waa qeybta dambe 4.